weli waxaa isa soo taraya geediga Puntland ay doonayso inay uga guurto habsami socodkii qori isu dhiibka ahaa ee Puntland muddo 24 sano ay ku soo dhaqmaysay oo waqti dheer ay ku caanamaashay. waxaana socda iminka sahankii ku saabsanaa sida geediga iminka ay Puntland ku tashatay inay u guurto loo hirgelin lahaa guddiga kumeel gaarka ah ee TPAC ee golayaasha deegaanka uu u diray safaro goobaha uu cayimay in ay doorashadu ka dhici doonto, iyadoo ay xubno ka mid ah guddigaasi oo u baxay gobolka Mudug ay haatan soo sheegayeen inay dhammaysteen sahankii ay sameynayeen iyo goobaha codbixintu ka dhacday, taasoo ay guddigaasi xubnahaasi sheegeen in dadka deegaankaasi ay si weyn ugu soo dhoweeyeen isla markaana sheegeen in dadku ay u diyaarsan yihiin barnaamijkaasi. Mahad Bashiir oo kooxda maraysa gobolka Mudug madaxa u ahaa ayaa sheegay in deegaamo badan oo haatan mareen si weyn looga soo dhoweeyey. Commissioner Mahad Bashiir Nuur waxaan cadeynaynaa oo aniga tiimkayguba in aan soo afmeernay kormeerkii iyo sarfeygii iyo sahamintii aan wadnay anigoo ahaa commissioner oo hormuud u ahaa tiimka watay gobolka Mudug. waxaan soo dhammaynay degmada Xarfo dhammaanteed iyo deegaamada hoos yimaada. isla sidoo kale waxaan maanta aan dhammaynay degmada Bursaalax iyo deegaamada hoos yimaada. dhammaantood si fuli ah oo wanaagsan ayay noogu dhamaatay. waxaana mahadda iskale Ilaahay. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa maamulka meesha ka jira iyo deegaanka dhammaantiis iyo shacabku intuba ay si fiican oo wanaagsan ay nolol shaqeeyeen. waxaana ka muuqatay rabitaan iyo baahi ay u qabaan arrinta aan ugu nimid. isla sidoo kale maanta iyo shalay iyo darhad waxa laga shaqeynayay Jiriiban iyo maxay ahayd tawfiiq baa laga shaqeynayay. meel fiican ayayna u maraysaa. xaaladuna waa fiican tahay. Ilaahay baana mahad iska leh. waxaan u mahad celinaynaa dadkii nala shaqeeyay dhammaan. degmada Taleex ee gobolka Sool ayaa kooxda tagtay iyaguna soo sheegayeen in dhammaanba goobaha loogu talagalay isdiiwaangelinta ay haatan diyaarsan yihiin, isla markaana shacbiga deegaankaasi oo dhan ay la kulmeen kuwaasi oo soo dhoweeyey in halkaasi ay ka dhacdo diiwaangelin iyo codbixin golayaasha deegaanka ku saabsan. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar ayaa sheegay in barnaamijka dimuqraadiyaddu uu yahay mid bulshada dan weyn ugu jirta, iyaguna ay ka mid ahaayeen degmooyinka lagu tijaabsay ayna arkeen miro dhalkiisa. dimuqraadiyadda gobol ahaan anaga magaalo madaxda Qardho gobolka Karkaar waa ka hirgashay. saddexdii degmo oo nasiibka u yeeshay waan ka mid ahayn, walow hadda degmooyinka la noo dhiman yihiin. waxaanu ka faa'iidnay marka dimuqraadiyadda aan ka aaminsanahay. dimuqraadiyadda electionkii hore aan kaaga sheekeeyay oo ahaa habkii hore golaha deegaanka lagu soo duulan jiray. golaha deegaanka wuxuu aan hadda aan Qardho waxaan kaga faa'iidnay oo dimuqraadiyadda aan ugu bognay aan Soomaalida iyo cid kasta ugu baaqayna marxaladii la soo maray ma soo marano waan ka soo sheekeeyay. golaha deegaanka oo dimuqraadiyadda ku yimi markii ugu horeysa waa dhalinyaro ah wada arday ah oo wada jaamici ah. waa dad wada maamulayaasha iskuulka ah macallimiinta iskuulka ganacsatadii magaalada ilaa marka dad hal abuur kale iyo shaqooyin kala haysta. waxay ku yimaadeen kartidooda iyo tartankooda iyo xisbi kasta oo wuxuu danaynayaa qofka wax ku oolka ah. waayo xisbigu damayn dhalaa goorta qof qoranayo ama maartay u tartamayo wuxuu sameeynaya qofka ku hal doorsan yahay qofka ka aqoon badan yahay. halkaas markuu waraysi waa tayadooda. marka xiga habkii dadku isku haysan jiray oo qabaa'ilka dadku isku nici jiray wax muran oo ka yimi ma jirto. xisbiyaa yimi ururo siyaasadeed baa yimi ururada siyaasadda baa qof kasta liisti soo qortay. qof kasta liisti uu soo qoranayo wuxuu ahaa liisti uu ka fiirsaday ilaa beerka been qofka hal doorka qofka aqoon-yahanka qofka wax tari kara qofka ururkan u heelin kara qofka wax tari kara. halka waxa ka baxday colaadii qabaa'ilka iyo isqa qabsigii. ma sha Allah. waxaan kaloo ka faa'iidnay qofka yimi oo golaha deegaanka u yimi oo rabay inuu wadanka u shaqeeyo inuu qof tayeela yahay oo la soo toojiyay oo ururku ka yimi baa soo toojiyay oo aqoontiisa kartidiisa ilaahay markay furfurnaantiisa reer magaalnimadiisa wax kasta ku yimi. waa faa'iido kale oo labaad. faa'iidada saddexaad oo kale nabadgelyada ka qayb qaateen. wuxuu haddeen muran lahayn dad baa saf u galay safka u galeen urur hebel wuxuu helay intaasoo kun oo cod xildhibaanadiisu intaas helay. urur hebel wuxuu helay intaasoo kun oo qof wuxuu helay intaas oo xubinood